injineer Faysal Ali Waraabe hogaamiyaha xisbiga cadaaladda ee Daryeel Kooxid oo qayb ka mid ah fidiyaanka kula hadlayay halkan oo hoyga uu ka degay magaalada Hargeysa ay wax uu Ilaahay ka bariyay inuu ku guuleeyo ergada xilligan ku sugan deegaanka Elafweyn arrintan nabadaynta ay u kaceen isagoona tilmaamay in ilaa hadda hawshaasi u socoto sidii la rabay aan taageerinayaa dadka ka yimi beeradoodii xaasaskoodii caruurahoodii isuux yimi waxaanay dabaqayaan amarkii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala Ilaahayna yiri sula taxjaar inuu sheegay wayn laba qayb haday isqabsadaan aslaxu baynahum marka amarkii Ilaahay bay oofinayaan way qaateen in ummadda walaalaha haday isqabsadaan ka dhax galo way u dhabar adeegeen shan cishay joogeen iyo wili markaa aan imanin labada family ay saaysta labada dhinac ay ka socdo waxaan jeclahay insha Allah ta'ala waxaan ka soo shaqeynaa inaanu marka hore jawi wanaagsan oo ay nabad ku ka abuurto lagu dhax abuuro in wax sameysmo kiina Ilaahay inuu hawlgariyo waxa maalinle labada family waa qoys waanu sheegnay dadka arrinta khusayso inay arrintooda haystaan oonay dad waxa jira haybta la wadaaga arag uga eeg laakiin ay iyagu dhibaatada oo taaban caruurahoodii iyo guryahooda nabad yihiin idna ka dhimanin ajendayaal gaaran leh oo qaar xitaa shisheeyayaal ay soo dirsadeen wala garo waxay Soomaaliland maxaa lagu baabiin karaa wax la baabiyo iyo la dhex karo laakiin waxaan sheegay Soomaaliland waa wasad qura lama ka dhex gali karayo iyada waxaan taasaan ku baraarujinay dadkan isku haybta yihiin haddana ajendayaasha gaar ka leh inaanay arrintooda martuuga noqon ay arrintooda goostaan afka isa saaraan arrintaas way naga dhamaanaysaa si dhaqso ah ayay naga dhamaanaysaa bidnillaahi kariim wa ducayna sidoo kale waxa uu hambalyo u diray ciidamada kala duwan ee Soomaaliland waxa ayana taariikhdeena ciidamadeena qaranka daafacaya iyo qolada halkaas taleetolayda haysa qabiilku asabiya qabiil ku dagaalamaysa ayaa culimadu waxay yiraahdaan waa shahiid markaas qabiil asabiya qabiil ku dagaalamaya ku inay shahiidina oo dhulkooda daafacaya waan taanideynaya arrintaasna waxa weeye markasta waxa adkaana xaq maamul goboleedka Puntland iyo sidoo kale mas'uuliyiinta dawladda federaalka Soomaaliya ayuu dhanka kale faray محمد سياد برا وعيدا بدنا أفريقيا لا بس أنا لقوا بربورية USA SM كوا بربورية محل وقعت كاني وعدالة در حقهم بعد كاني طلع يدنا ما تحقق كات كاني حلينا هنا الشعبية غير قروية غير بوساسو أنا وكيس كوا حنا هاي سناون دولة فدرالك معمولك حمر عن كل رمسك أي فرمات يوم حسنا طلع يدي سوء عليه طلع ينهارك محمد سياد برقي دي هو وقت مقدشو ويقل قلتون برقي سي مالك تشبيرة هذا أرجع عن طمع ما كقل قلتون كدول شعون وده كدول دون تاي أقول هذا اللي هبط فريضة مقدشو وقت قل قلتون دون تاي طلع هبات كان تاي هذه يا شنطة يقولنا كل دارات كم دحتوه كل هيست واكو قربان واكو أجنبي مقدش والجنس المقدش هرجيس أنا سو 20 بلي هنا واحد دول ميك ولا تعلمه تاريخ ويحسوا حرامي ظلمي أنا ظلمي ريفنش ما نقانو لكن ظلمي كان سكعلنا hogaamiye wuxuu sidoo kale si weyn u bogaadiyay ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Itoobiya Abiy Ahmed talaabooyinka horumarneed ee dhanka nabadaynta ay xilligan uu ku fogan yahay isagoo dhanka kale jawaab ka bixiya dalka ka soo baxay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida dalka Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar waxaan tahniyanayaa ra'iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya Soomaaliland dhigi dalba ka dhaxeeya waa strategic partners been inaguna Itoobiya Djibouti كلا كشنال يجبوتي سومالنا واسكو قرب اسكو دبرنا كلا قرن ما يصدح مفس waxaan jecelahay halkaas soonaha shanaad soo xijina wanaagay iyo wada dhalashadii bridge-kii wada dhisnaa waxaan jecelahay halkan ku casuunay insha Allah taala
qalbi dhagax ay muqdisho dhiibtay waxaan aado u ahaan jiray Soomaalida in cadow la isku dhiibo istawa casuumina insha Allah ta'ala sidaan bila rafi casuunay sidaan aan xalano casuunay dad waxaan islaahay walaala dadka iska xigaanahay insha Allah halkan baan ka hagaajinaa Soomaaliya waxa qoonsa platformka Soomaali shanta Soomaali laga hagaajiyo halkan baa laga shanta Soomaali ba looga heesti heesti wax ficil baan ku bedelnaa ilaa aan ka xumahay inuu madaxweynihii kala kashanaadna inuu ila dadkayga waxaan u leeyahay wali amri waa ilaha Soomaali ay tira falaadhi gelato kaagama goor dadkii amba lagu xay xabad lagu dhafaan ba xubur asaab ku qabatay anu waxa ka sheegay the only person qof qoray Soomaali ka sheegay baan ahay kuwii caayay iga daba hadlay culimadaasi ta khayrawayashi iga daba hadlay marka laawad meesha waxa ka socdaa waxaan Chechnya ka socotay baan tii Ingiriis ee Ruushku dadka Chechnya oo yiri ninka madaxda Chechnya waxa doonta sameeyaan muslim arkin arintaas waxa leenahay in lagu amriyo in kalaba cadaaladu ma you have to wait face karisa maxkamada waxa cadeyn karoon waa maxkamadu ma ku cadeyn karta in la adu amar ofiisay adu is ofiisay waan soo dhaweynaa haragad on elef iyo magaranaysa heshiiska ay sameysteen ka Eritrea oo sameeyay iyo Ethiopia soo dhaweynaa geeska waxaan doonayaa nabad ka sameeyno geesku wadada isku mid ah kala garan maayo inuu diray Faisal Maxamed Aadan Faisal fi TV caalamiga Soomaali Cable Hargeysa